Tigreegi oo maanta noqday qowmiyadda ugu naxariista badan markii loo eego Soomaalida qowmiyadaha kale ee Itoobiya. Fariin iyo hanjabaad isla socoto ayaa loo diray Abiy Ahmed. Soomaalidu waa inay qayb ka noqotaa talada Itoobiya, ayuu yiri Getachew Reda, hogaamiyaha cusub ee ama madaxweynaha cusub ee gobolka Tigreega. Mustafa Cagjar oo arrinkaas ka xumaaday hadalkaas ayuu ka carooday. Soomaalidu talaha la siiyo meel fiican la gaarsiiyo ayuu ka xanaaqay. Haddaba hadal ka soo yeeray Mustafa Cagjar iyo hadalkii Getachew Reda iyo digniintii loo diray dowladda Itoobiya iyo Abiy wuxuu ka yiri ayaan barnaamijkeena ku gorfeen doonaa. Aragtidaada waa inoo muhiim. Muuqaalka like saar. Tigreeg oo maanta Soomaali u danaani hayso oo danta Soomaali ka hadlayso waa war weyn, bal muuqaalkan like saar oo Soomaalida kala gaarsii si ay u arkaan. Haddaba waa yahay Getachew Reda waa madaxweynaha cusub ee gobolka Tigreega, gaar ahaan waqooyiga Itoobiya iyo gobolkan ku yaala dagaal ayaana ka socday. Markii la isku soo laabtay kadib Abiy ayaa go'aansaday in Getachew Reda uu hogaamiyo gobolka Tigreeg. Madaxda gobolkan iyo shacabkeedan way ogolaadeen. Waxa uu soo saaray fariin adag isagoo oo wareysi bixinaya. Waxa uu sheegay in Soomaalidu lagu liido Itoobiya siyaasadeeda iyo maqaam ahaan, waxaana uu sheegay in suuragal ah intaas Tigreeg ma ogolaanayso ayuu leeyahay in Soomaalida la wiiqo awoodeeda, hoos loo dhigo, la cunsuriyeeyo lana dhibaateeyo. Waxa uu yiri waa in xilalka ugu sarsareeya dowladda federaalka Itoobiya ay qaataan oo ay qabtaan Soomaalida. Haddaba wareysi uu bixiyay waxa uu ku leeyahay waa in Soomaalidu meesha yimaadaan, waa in ay awood helaan, waa in ay qayb ka noqdaan oo ay maamulaan taladana ay qayb ku yeeshaan talada Itoobiya. Arrinkaas ayaa aad loo hadalhayaa hadda, waxaana ay noqotay hadalhayn weyn maadaama Tigreegi loo arkay in Cagjar ay ka aari doonaan maanta ay Soomaalidu u danaaninayaan. Talo ma shirqola ma wax kala xalku ma sahlano. Dadku way fahmi laayihiin waxa halkan ka jiro. Dadku way fahmi laayihiin waxa la isleeyahay talo sidee wax u jiraan oo meeshan Tigreeg maanta Soomaali u danaaninayso waa warweyn. Mustafa Cagjarna ciidamadii Liyu Booliis ayuu ka soo saaray furmaha ee caanfartii ka ciilahay Soomaalida ee Oromada ka ciilahay dhulkooda difaaci lahaa. Tigreeg waxay leeyihiin Soomaalida talada Itoobiya ha laga sii. Abiy ay la hadlayaan oo digniin ay u direen. Waxay leeyihiin waa waajib in Soomaalidu talada ay wax ka noqdaan, iyaga ayaa muhiim ah ayuu leeyahay Getachew Reda. Hadalkaas Mustafa Cagjar ayaa ka carooday, waxaana uu ka xumaaday go'aanka iyo hadalka Soomaalida uu la galay madaxweynaha cusub ee gobolka Tigreeg Getachew Reda. Afyeenka hore weeyaane waxaana uu si toos u sheegaya in Soomaalidu la cajajoobay, la gacan bidixiyay, la yasayo. arrintaasna waxa uu sheegay inaysan ahayn wax wanaagsan, Itoobiya aysan ficinin. Cagjarna waxa uu leeyahay maxaa ka gale, maxaa adigu ka gala Soomaalidu hadii la yeeso iyo hadii la bahdilo iyo hadiiba wax loo diido adiga maxaa ka gale. Marka ninkan Mustafa Cagjar la yiraahdo meesha uu socdo iyo meesha uu ka socdo talow yaa yaqaan ayaa leeyahay. Marka wararka Soomaalidan eegayna markan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa war cusub ka soo saaray, waxana uu ka hadlay dagaalka cusub ee Sabtidii ka qarxay dalka Suudaan, kaasi oo haatan ka sii daraya kuna sii fidaya meelo hor leh sida ay sheegayaan wararka ka soo baxaya magaalada caasimadda ee Khartoum ee wadanka Suudaan. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo soo saaray bayaan ku qoran luqadda Ingiriiska ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka kadibna wax kasta lagu dhameeyo wada hadalka. xaaladda oo la sii huriyo iyo rabshadaha oo la sii kordhiyo kuma imaanayaan xal caqabadaha waxay wajahayaan Jamhuuriyadda Suudaan, ayuu Xasan Sheekh Maxamuud ku yiri nuqul kamid ah war saxaafadeedkiisa ee uu soo saaray. Sidoo kale waxa uu fariin u diray beesha caalamka isagoo ugu baaqay inay qaadato doorka kaga aadan dhexdhexaadinta labada dhinac si loo qaboojiyo xiisada Suudaan ka taagan. Horey wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxay ku muujisay sida ay uga walaacsan tahay isku dhacyada hubeysan ee u dhaxeeya iyo xoogagga birmadka degdega ah ee dalka Suudaan. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada ku lug leh dirirta si ay degdeg u joojiyaan colaadan isla markaana ay u xakameeyaan dhibaatada ayna guda galaan wada hadal lagu xalinayo khilaafaadka si loo dhowro amniga iyo xasiloonida siyaasadeed, ayaa lagu yiri bayaanka ay wasaaradda ka soo saartay rabshadaha ka soo cusboonaaday Suudaan. dhanka kale wararkii ugu dambeeyay sheegaya in wali xaaladda ay kacsan tahay, waxaana saaka joogta madaafiicda culus laga maqlayay Omdurman oo kaabiga ku haysa caasimadda Khartoum iyo Bahri oo iyana u dhow magaalada caasimadda ah. Goobjoogayaal ayaa soo warinaya in rasaas ay ka dhacaysa magaalada Port Sudan la yiraahdo oo ku taala dhanka badda cas. Sidoo kale ugu yaraan 56 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen iska horimaadka culus ee u dhaxeeya ciidamada Suudaan iyo ciidamada RSF loo yaqaan, kaasi oo ka dhacay caasimadda dalkaasi Suudaan ee Khartoum.
xaaladda ayaa degan. Hadda waxaa la soo warinayaa in madaafiic waaweyn ay ka dhacayaan magaalada oo cabsi weyn ay ka jirto, taas ayaana suuragal ka dhigaysa in colaadu ay cirka isku sii xirto. Waayahay, haddii aan usoo laabano, madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan xasaasi ah oo habka fogaan aragga ah la qaatay safiiro ku-xigeenno iyo diblomaasiyiin kala duwan oo ka tirsan dalalka Yurub. Safiiradan uu madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi kulanka la qaatay ayaa ka kala socda wadamada Finland, Faransa, Germany, Ireland, Netherlands, Norway, Sweden, Turkiga, sidoo kale Britain iyo Mareykanka, sidoo kale qaybo badan oo kamid ah dalalka Yurub oo midowga Yurub xubno matalaya ay qayb ka ahayeen. Kulanka madaxweyne Muuse Biixi iyo wakiilada beesha caalamka ayaa inta badan waxaa looga hadlay dagaalka ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, iyada oo uu madaxweynuhu uu wakiilada caalamka u cadeeyay mowqifkiisa ku aadan colaadda ka taagan halkaasi. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ka warbixiyay tallaabooyinka kala duwan ee uu sheegay in xukuumaddiisu ay u qaaday dhinaca nabadda iyo xasiloonida Laascaanood, taasi oo qayb ay ka tahay ergow maamulkaasi u diray dhinaca ay ishayaan ee ku sugan Laascaanood. Sida uu isagu sheegay, xukuumaddu waxay u dirtay magaalada Laascaanood wafdi wasiirro ka kooban oo loo xilsaaray arrinta Laascaanood, wadahadalna ay ula furaan ama wadahadalna ay la furi lahaayeen madaxda dhaqankuna waa ay ka gacan saareen ama ay diideenba, ayuu madaxweyne Muuse Biixi ayaa dhankiisa waxa uu xaqiijiyay in xukuumaddiisu diyaar u tahay xal nabadeed oo laga gaaro colaadda sii daba dheeraatay ee ka taagan xarunta gobolka Sool ee Laascaanood. Waxa uu sheegay in xukuumaddiisa ay ka go'an tahay in bilaa shuruud ay garadaradii muddadii dheereed ay ka muuqata Laascaanood in ay soo galaan magaalada si ay qayb uga noqdaan nabadda kusoo dabaalidda magaalada weeyaan. Hase yeeshee nasiib darada magaalada waxaa la soo galay calan dowlad kale, hub iyo ciidan, sida uu isagu sheegay. tallaabadaas waxa ay uga sii dartay xaaladii markaasi taagneed ee ahayd inay dejiyaan, ayuu madaxweyne Muuse Biixi ku sheegay ama u sheegay wakiilada beesha caalamka ee uu kulanka ka qaybgalayay. diblomaasiyiinta ayaa waxa uu sheegay in xukuumaddiisu ay u ogolaatay shirkii ay ku baaqeen waxgaradka Laascaanoodkaasi oo ay markii horeba u arkaysay in uu qayb ka noqon doono dadaalada nabadeynta, balse waxa uu shirkaasi noqday mid lagu wiiqayo qarannimada Somaliland iyo nabadii ay ku noolaayeen dadkii Laascaanood ku sugnaa 15 sano ee ugu dambeysay. sida uu isagu sheegay, xukuumaddu waxay go'aansatay in ay ka saarto magaalada Laascaanood gudaheeda dhammaan ciidamadeeda kala duwanaa si loo yareeyo khasaaraha. waxa ayna ku baaqday in ay fuliyaan xukuumadda xabajoojintii ay iyadu soo saartay oo bilaa shuruud ah, kadib markii gardarradu ama ciidamadu ay sii laba jibaareen dagaalkooda waa kuwa abaabulan ee magaalada Laascaanood. Somaliland ayaa sidoo kale ka dhawaajisay inay aqbashay dhexdhexaadinta dowladda Itoobiya, ayna ka ogolaatay ergadii ka socotay dowladdaasi in labada dhinac ay miiska wadahadalka tagaan oo ay isugu tagaan Addis Ababa. hase yeeshee ay ka suurtageli weysay arrinta dhinaca garaadada gobolada Sool Sanaageen, sida uu madaxweyne Muuse Biixi markale u sheegay safiirada beesha caalamka. safiirka ku-xigeenada iyo diblomaasiyiinta wakiilada caalamiga ah ayaa ugu dambeyntii uga mahadceliyay madaxweyne Muuse Biixi in uu ka ajiibay kulankan oo dalabkiisu ay iyagu lahaayeen. si kastaba dagaalka magaalada Laascaanood ayaa galay bishii 3aad, waxaana gabi ahaanba burburay waan iyo dhexdhexaadin lagu rabay in xal waara looga gaaro xiisada ka taagan magaalada Laascaanood, waxaana weli duleedka magaalada isku horfadhiyay ciidamada labada dhinac oo suuragal ay tahay in daqiiqad walba dagaal uu ku dhexmaro magaalada. saasaan culus ayaa ka taagan magaalada, waxaana la soo warinayaa in ciidamada maamulka Somaliland iyo kuwa gobolada Sool Sanaageen mar walba ay helayaan gurmad dheeraad ah, taas oo suuragal ka dhigi karta mar walba in dagaal uu ka qarxo magaalada gudaheeda, taas oo ay beesha caalamku ay ka cararayaan ama ay diidan yihiinba in mar kale dhiig kale uu ku daato magaalada Laascaanood. bishii 3aad oo xiriir ah ayay dagaaladu galayaan. ciidamada Somaliland weli waxay u diyaarsan yihiin in ay dagaal iyo sidoo kale awood ku qabsadaan magaalada Laascaanood, taas oo suuragal aan u ahaan karin mar kale in magaaladu ay si xooga ku galaan. waxaan hor istaagsan ciidamada sabaabule ee gobolada Sool Sanaageen ee dadka shacabka ah matalaya, kuwaas oo diidan in Somaliland ay hoos tagaan. guudaan saaxiib halkaas aynu kusoo gabagabeynaa barnaamijyadeena tan iyo qaybta kale intaan ku kulmi doono nabadgelyo.